kastoo dunida ka joogtaan habeen kaloo weyn Liverpool vs Chelsea waana finalka Liga Cup-ka waana markii ugu horeysay muddo ku dhow 17 sano kadib oo ay labadan kooxood isaga hor imaanayaan finalka ciyaaraha kan ee Liga Cup-ka habeenka Thomas Tuchel iyo Jurgen Klopp ayaa halka ku dagaalamaya midkood hadduu caaw ku guuleysto koobkan wuxuu noqonayaa Jarmalkii ugu horeeyay ee ku guuleystay tartanka Liga Cup-ka oo kuwa ugu badan ay haystaan yihiin labada kooxood ee kala ah City iyo Liverpool oo tartankan u qaaday 8 jeer waliba City ayaa ayaantan tartankan iska haysatay kuwa oo tartanka ku guuleystay yani 4 sano ugu dambeeyay caaw marka iyagaba ishayo yani waxa ishayo Chelsea iyo Liverpool oo runtii Liverpool waxay doonaysaa caaw inay noqoto kooxda ugu badan ee ku guuleysi badan tartankan bay doonayaan oo markii sagaalaad bay doonayaan habeenka halka Chelsea ay sidoo kale iyana doonayaan in ay mataqaana habeenka ku guuleystaan markii lixaad tartanka kan runtii waliba lagu ciyaaraya waa halka ay ku dhiban tahay kooxda Liverpool sababtoo ah shantii ciyaarood ugu dambeeyay halkan ay ku ciyaareen waa ka awood waxa la taageerayaa football waxay kubadda cagtu waxay la jirtaa Ukraine ayaa la soo qorayaa habeenka caalanka Ukraine ayaa qaatay gagada Wembley Stadium Ingiriiska wuxuu ka mid yahay Broniga dunida meelaha aadka looga taageeray Ukraine ruush waa la qaban waayay waxay noqotay inta Ukraine la iska taageero la muujina leeyahay noqotay baasha mooyaane cid yac ka dhaxda waa la waayay haddaan ugu Soomaalina jaabayaan nahay dagaalana gelinna masaakiinaan nahay caalamkii uu isku fiirsanaya dadka isdagaalaya aw Mareykan waarkii lahaa nimanka dadka celinaya waxna waa ka celin waayay marka waxaan leeyahay anaga dam Soomaali iska nahay adduunka aan ku joogno arwalaahani raali noqda fafardis marniya dagaal yaa faul lagu daynaya intan offside baa lagu daynaya marka haddaanu Soomaali nahay jaabayaan iska nahay oo adduunkan dadka xoog badan manihi masaakiinana nahay waxaan ugu galina maxay ila adduunka cid wax ka celinaysa malaha Ukraine ba waa kaayo lagu fiirsaday baashi oo offside dhexda ka taagayin laakiin Broniga ayaa si weyn looga taageeraya laakiin kooxda Chelsea waa kay afkore goolka still Asbel no Pulisic baa soo martay still blue ba mar kala ciyaaraysa Alonso waryahay gool bay ahayd laakiin Keller wuxuu muujinayaa inuu yahay nin qatar badan wiilka kan waa waryahay Thomas way soo martay kooxdiisa Pulisic baana bahashu qasaariyay walla fi fursad bay ahayd kayba kubadu qaatay jiiday halka dhigay soo celiyay Asbel Allah bay ahayd fiican runtii markaas buu Christian ku dhuftay laakiin wiilka kan waa sababta uu Jurgen Klopp u yiri wuu qalmaa inuu wiilkan ciyaarsiyo caawa finalka sababtoo ah isaga ayaa kooxdu keenay finalka وصوت وامن ويلك شغليس بو هيان جيسر دكا كور شغليس بو هياي او كيتا سعيد او استلاو ورياه فرصه بيهد ماني مركي ورو كيتا marka dambe maani ku baadiyay maani waa sababta loo jecel yahay gacmad baadi ku jirta Chelsea maani wayaan والله شوط بو هاوين صاروخ baa lagu yaqaan Keita wuu soo celiyay maani wuu ka diiday walaalkii kuma fasaxi karo goolkan anigu ma koobku waan rabaa istii labada cajabeed ee walaalaha ee Senegalka waa gool hayaweyn waa sababtan caawa keeb waa caawa lagu keebeen karo waariyaha kabo caawa laba keebeen kar baa la yiri baash deer hore gaarto waan arki doonaa laad bay laadayaan oo Arnold baa laadaya Alexander waa kana ciyaaraya sahlan waan weysay laakiin raacis bay lahayd baash inuu ku sii dhufto kay waa kana ciyaaraya Havertz Alonso Chelsea garba durida bilaad jida James wax soo baxay Alonso soo laabtay intuu ka kala ka iimaanayo Lukaku waa ku soo tuuray haya kay yes Chelsea goal haddana markala warniyo maxaan yeelnaa habeenkee haddana goolka saddexaad habeenka la diiday waxaan iska baxaynaa leeyahay Tuchel iska baxnaa Tuchel soo taagan yahay maxaa ilaa markuu qaaday Lukaku bal fiirmis joogya Ferry marka inta si loo baasi waa jooga offside buu ku jiray يا ودنا ورياه habeenku walla waa orday la walla inuu korob ku shaqeeyo waraaka warsaxay inuu korob ku shaqeeyo waraaka warniga midkoodna waa laga qabanaya Alisson hatta cunuga yar maro dhalay uu leeyahay Alisson waa cunuga ka yar baraxsan yahay cunuga yar waa dadaalay cunuga dadaal ku dheeraada caawa dadaal ku dheeraada cunuga hero to zero noqda Kelleher war Kelleher waa dhaliyay hey kabo adiga wayaan kabo adiga والله فرمي وقصلين عاوة
waayahay kudaysoy wadadaad maraysa keban waxaan ku aqaanaa shuqul gaalaysan ku aqaanaa shuqulayse ronaldesan ku aqaanaa kebo intuu shuqulaynaya balhaye waayahay fodherow mandi waa naxsan yahay markan marka kan haye kebo war boryahe war kebo Liverpool ayaa qaaday koobka hiroga habeenkuna waa Kelleher wana markii sagaalaad oo ay Liverpool koobka ku guuleysanayso habeenkii baana sida ku soo dhamaaday hero ayuu noqday Kelleher Chelsea ugu dambeeyay koobka waa laga qaadayo waa kayakaba ugu dambeeyay Master Mbaxayi hadduu yar sii sheegayaayo 72 milyan buu ahaa waa goolayaha history ugu qaalisan maqaarka uu ahaa waa kaye aanu markii xeela ay ku dhacayso Liverpool habeenku koobkii waa qaaday way dabaaldegayaan oo ay habeenku qaateen Wembley Liverpool waxay markooda ka aarsadeen kuwa kan finalkii Liga Cup-ka ee 2005 markaas oo Wales laga qaaday koobka Chelsea ku guuleysatay koobka marka waa kan habeenkii waa soo dhamaaday hambalyo Liverpool war habeen lagu daalay buu ahaa mandi Mbaxayi buu saas qalqaalinaya والله المبحي عبد ليفل بلوكيت كريتي maxay yeelay wax la badbaadi meesha ma yaalan baa leeyahay ya markaan ku dhahay ninkan waa shaqulaynaa ninkan intuu Ronaldo inay bahasha inuu meel xun mariyo waa laga yaabay ya wala bahashi meel xun buu la aaday ya wala wala yaabay habeenka Jurgen Klopp hambalyo Liverpool habeenka iyaga ayaa ku guuleystay koobka waka habeenka waa soo dhamaaday